ابن بطوطة مساك كتاب بطوطة ولقى ما isweydiisay taariikhda ku qoray ibn batuta Soomaalida markuu soo degay uu dhahay waxa xukuma ama deegaankan degan qolooyin kamida dadka la dhaho berber haddana waxa la dhahaa isaga laftigiisa berber ahaa see ku dhici kartaa inuu isagu dhaho dad berber ayaa meesha degan asagii oo berber ah suurtagal ma tahay inuu ahaa haddaba kadaab oo beenaala run ahaantina adduunkan soo marinba ama laga sameeyay taariikhda inuu ka soo xaday Saciid Muqdisho سعيدكي مقدشو أو أدونك ميلو ربا أدونك كو سفري بام سعيدكا أها أمباسادوركي كواد إيه تشاينا أفريكا متلاعي waxaa hadaba kuu sheegaya hadad eegti taariikhda Saciid Muqdisho iyo Ibn Battuta waxaad arki kartaa inay isku sanad almost dhasheen 1301 iyo 1306 inta u dhaxaysa xilliga ay dhimanayeen labadoodana la qoray waxa weeye 1365 ilaa 69 waa laba isku dhow haddaad eegti maapka uu maray haddana Ibn Battuta waxaad arki kartaa inuu maray isla raadkii uu maray Saciidkii Muqdisho waxa kale la yaab ah haddana oo la qarinaya inuu xitaa dhahay marka la weydiiyay sida China ku tagtay wuxuu yiri si qarsoodi ahaan waxaan la kulmay Saciidkii Muqdisho oo ila qaybsaday qaaradii iyo maapkii uu ku maray meel walba ayaan sidaasna ku tagay waxa si cajiib ah inuu ahaa Saciid Muqdisho ambassadorka China oo sidaas awgeedna haduu la kulmi lahaa isaga laftigiisa oo ka warami lahaa waxa kale cajiib ah haddana inuu Ibn Battuta sheegay inuu qaari ka ahaa magaalooyin fara badan ودينتا إسلام كنا سيدا كحكومي جري سيدا إنديا سيدا محلا منغوليا سيدا أفغانستان واستا تاريخ دي سعيد مقدشو وسوى هانجري قاري لكيسة إساقا ميلو بقاري كاها إذا مساجد والبو وشوغو جري وكريسي جريبا ولو مقع دري وانا لقيا غانا دونكا وحكا لا عجيبة حدنا إنو وصان هال كتابة أما هال قرالة وصان قرين ابن بطوطة oo markii uu dhahay xitaa waa la dhacay anoo jooga India dhulkaas wax walba laga siibay dharkayga mooyaane uu still dhahayo waligay hal qissa ama hal sheeko kama qorin safarkayga markuu ku soo laabtay haddana Morocco ayaa la yiri intuu dhiman ka hor ayaa nin kale ayaa yiri aan ka qoro qissadaadii wixii aad soo martoo dhan yani buuga hataa isaga muu qorin ban galbeedkii iyo wadamadan iyo meel walba maray hal sawir ama hal kitaab ama hal warqad uu kala turjumay laga hayo حاجة لقاها يو سعيد كمقدشو إنتاس أو دوكومنت إنتاس أو مرخاتية إنتاس أو راد وكرة بأدون كورنا وحيلا عجيب كوحا كمدا حدبا عدين تينا يندهينا أنا كو أحرب كو أركي كرنا أيانو سكي آميننا عرب نمضان أو مركي إنو يمادين إنا قبصدين إنا مسكحنا نجا ودلين إنا عرب نمو كفانو عرب نسمودنو قارد داس أدارك السين وحوية رادكي ومرا ابن بطوطة وشيغانا يو وإسلا رادكي ومرا سعيد المقدشو عربتان markay tagayeen Morocco ilaa Spain waxaad garan kartaa inay Soomaalidu ahaayeen berberkii asalka markay carabta yimaadeen Soomaaliya la baray raadka lagu tago ilaa iyo geeska Algeria iyo Morocco iyo Spain ba waa Soomaalida way dadka asal ahaan berberka la dhaho Soomaalida way kuwa la dhaho Kusheetiga Soomaali way kuwa Fircoon iyo historiga pyramids-ka wax walba dhisayba yaasan maanta taariikhdaadii si fudud lagaaga xadin carabtuna ka dhaadhicin inuu Ibn Battuta jiray run ahaantii waxa weeye nin Soomaaliya Saciid oo Muqdisho ku magac dheer adduunka dhan laga ixtiraafsan inuu jiro laakiin Ibn Battuta ilaa gaaladii baa yaaban oo leh ninkan jaafaajiglu ahaa muubasan jirin ama taariikhdan uu sheeganayo dhan waa wax uu soo xaday adigana laga xaday